bilowga fadhiga gudagalka dacwadda shabakadda arbushaada caasimadda way bay isdiidan yihiin oo ama aqaani iyo mid kasta labadooda ma isgaranaynaba weligii ma arkin aqoon qafeed mid shakhsiyeed mid hool waxaan aqoon u leeyahay ma jirto ma isnaqaan waxa aqoon u sameeyay ma kana waxa aqoon u leeyahay ma jirto marka halkaasi ay joogto xiraalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida bal hay noo bayaaniso xiriirka ka dhaxeeya saddexdan eedeysana ee inkirsan ka amniga ka tirsan ee ducaala warsam xoog inuu wacay waxay waceen Cabdirasaaq wuxuu wacay 21 wacay guuleedna wuxuu wacay 19 nin aanan aqoon u lahayn oo inuu ururkaas ka tirsan yahay aadan ogeyn wacamaysid moobiladan hala baa laga helo macquul ma marka waa intaas waa xiriir ka dhaxeeyo waana xiriir telefoon oo cad oo shaki lahayn guuleed muxudiin axmed absugi cazaam liibaan mahdi axmed carab iyo Cabdirasaaq daahir maxamed ceerow diktoorka saddexdan waa koox qaabilsaneed arbushaada caasimadda kontaroolada Shaleemo Cabdiwaayil ex control balcad fadhiga ciidan ee baqaarka Cali Agoon iyo kan baar jawhar oo ku wada yaala degmada Hurwaa ee gobolkan Banaadir ayay weerar ku dhufo ka dhaqaaqa ka geysan jireen si loo diro fariinaha caasimaddu amni maaha 6dii bishii labaad ee sanadkan saacaduna tahay 2 habeenimo weerar arbushaada oo ay ka qayb ahayeen saddexdan eedeysane kuna bartilmaameedsadeen barta ciidan ee baar jawhar Muqdisho ayay ciidamada ammaanku nafta ku dhaafiyeen mid afraad oo samanla ahaa halka saddexdii kalena uu kala carar u soo baxay markaan saasiishu u saaray ligi samanla gadaalo u baxay kii aakaygu wata xabad bilaabay waxaan fahmay marka sabanka inuu u dhici waayo kii aakayga xabadda markuu bilaabay aniga askariga banaanka isla taagneen xabadaan ku bilaabnay ayagana difaaci u jeedeen anagana difaac inta ka jirnay ninaa meesha ku dhintay qorigii sabanka meesha ay ugu carareen xitaa adiga hore kama imaysan carareen cabaarayna la dagaalameen askartii difaaca ku jirtay ay ka soo baxaan ay laamiga soo istaagaan marshibiyeedka dhaxa ay luuqay xabadda ka socota ay xabadeeyaan markii difaac laga soo baxay arkay nimankan inay niman kale meesha ka soo baxeen ayagoo yoolbaar ridaya weliba gadaal inta inoogu sii carareen derbiga ay xabada la dhaceen qorigii sabanka meesha ugu tagay sabanka markaan arkay yarka askariga wuxuu dhahay taliya nin meeyda meesha yaal meyd ma yaalan qorigii sabanka ma yaala ha waa soo orday telefonaadkan waxaan ugu soo tagay goobtii fadhiga dagaalka uu qabsanayo oo banaanka aan telefonaadkayga iyo macalgacankii aan ugu soo tagay telefonkan u orday si aan madaxda u wargeliyay telefonaadkan soo qaaday sabanka liga hor keenay sabanka meesha keenay meydkii meesha ka soo bixin banaankan keenay sirdoonka caasimadda oo baaris ku dhaqaaqay ayuu raadkii ugu horeeyay ay heleen noqday horjooga guuleed cazaam oo lagaga sii gudbay shabakadda inteeda kale sidaasna ay ku soo gacan galeen ku-xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida xeraalyaha Cabdicasiis Cusmaan Faarax oo sheegay in eedeysanayaashan ay ku caddahay eedda loo haystay arbushaada ayaa codsaday in lagu xukumo ciqaabta u dhiganta qodobadii ay ku soo eedeeyeen in nimankaanu xiriir telefoon ay leeyihiin amiirkooda in ninka eedeysanaha koowaad uu yahay eedeysanihii soo qabtay labadan qof ee inta ka waday degmadan Xamarweyne ka waday laama amniga geeyay degmadii Hilwaay xaafad u sii tagay ee waxaan cadda dhexdeeda ka soo qabtay eedeysanaha labaad liibaan sidoo kale waxaan shaki la'aan u cadeynay mudane gudoomiye garsoore in eedeysanaha koowaad haddana inta baxay oo laami amniga waday suuqa xoolaha miis ku yaalo oo qudaar oo istidlaac ka fulina eedeysanaha saddexaad inuu toos u soo qabtay shaki ma lahan in nimankaanu maxkamadda hor fadhiyo ay yihiin eedeysanayaal qodobadii aan ku soo eedeynana ay waafaqeen xeeraalintu kuma dhignaa lahayn maxaa yeelay xeeraalintu waxay mas'uul ka tahay amniga ayaka waxay mas'uul ka tahay amniga ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxay mas'uul ka tahay amniga qaranka oo dhan waxay ilaalisaa oo ka ilaalisaa dambiilayaashu inaynan fokan intaas oo dhan oo baarista 6 bilooda ayaa waxaan ku soo gudbinay aan ku soo ogaanay in eedeysanaha dhintay iyo nimankan ay xiriir leeyihiin mudane gudoomiye garsoore maadaama caddeynteenu ay tahay caddeyn waafaqsan 110 shaki la'aan ay tahay in nimankaani ay ninka dhintay xiriir leeyihiin waxaan ka codsanaynaa maxkamadda in lagu xukumo qodobada aan ku soo eedeyn 221 325 iyo qodobka 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waa maasan tahay qareennada eedeysanayaasha difaacayay ayaa mid kasta kal fadhigan la golo yimid difaaca muwakkilkiisa qiraalku naftiisa markaatu baahan qiraalku caddayn u baahan yahay qiraalka mararka qaar ama waa lagu qasbaa ama wax kala ku qarinay qiraalka waxa lagu xumeyn karaa qof isnacabtiin
lagu soo dari karaa qiraalka keligii waxba laguma dhisi karo haddii aan caddayn loo helin maxkamadda sharafta leh si waafaqsan 122 aa codsana mawkilkayga maxkamadda horteeda wax laga caddeeyay isan jirin hadduu nabadda iyo nabadgelyada amniga iyo culays ku yahay wax cadaa lagu heli doonaa tan hadda maanta waxba laguma hayo ilahay hortiisa maxkamadduna waa maadsanta waxaa codsanayaa cabdirasaaq daahir oo aan qareen ku ahay xafiiska xeer ilaalinta inuu ku guuldaraystay 110 163 oo laga rabay caddeymihiisa soo dhammaystirto waa laga waayey sidaas darteed inay soo qabato 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya maxkamadda sharafta leh waa mahadsan tahay oo wax dhaar ku cad uusan ahayn waa shubhana in xukun lagu dhiso saas sax ma saas daradeed maxkamadda sharafta leh ayadoo cadaaladii wakiil u ah amniga wakiil u ah mujtamaca wakiil u ah sida annaga aan ka arkayno sharcigeena aan ka arkayno dal muslim ahanahe xujo dhammaystiran oo guuleed lagula xukumi karo inuu dembiile yahay kullay meeshaan kama dhicin go-aanka maxkamadda iskale gaashaano sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ugu dambeyn soo xiray garmaqalka maanta dhageysiga garmaqalka dhanka ka ahaa eedeysanayaal guuleed muxudiin axmed absuge iyo liibaan mahdi axmed cilmi iyo cabdirasaaq daahir maxamed maxamuud intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go-aan ka soo saaraysa maxkamaddu waa noo xiran tahay